goorsan daawadayaal waa mar kale iyo wararkii xul iyo xaqiiqo qaybtan waxaynu isku dultaagaynaa haddii aan la idmo wadamada Finland iyo Sweden oo damacooda ku biirida NATO soo cusboonaaday iyo degniinta culus ee Moscow. taariikhdu waa 12 April 2022 duco qabayaal mar kale soo dhawaada. Ruushka ayaa uga digay dowladaha Finland iyo Sweden inay ku biiraan ururka ciidamada ee NATO isagoo ku dooday in tallaabadaasi aysan xasilin u soo kordhin doonin qaaradda Yurub. Afhayeenka qasriga Ruushka looga taliyo ee Kremlinka Dmitry Peskov ayaa u sheegay warfidiyeenka in isbahaysigu uu weli yahay qalab loogu talagalay iska horyimaad. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo saraakiisha difaaca Mareykanka ay sheegeen in duulaanka Moscow ee Ukraine uu ahaa khalad weyn oo istaraatiijig ah, taas oo ay u badan tahay inay keento ballaarinta ciidamada ururka ciidamada ee NATO. saraakiisha Mareykanku waxay filayaan in dariska waqooyiga Yurub ay u soo bandhigaan xubinnimada isbahaysiga inta ka horeysa bisha 6 ee sanadkan aynu ku jirnaba. Washington ayaa la rumaysan yahay inay taageertay tallaabadan, taas oo ka dhigaysa in xulafada reer galbeedku ay kor u dhaafaan 32 xubnood. saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa toddobaadkii hore sheegay in wadahadal uu dhex maray madaxda NATO iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Helsinki iyo Stockholm ka hor inta uusan bilaabin duulaanka. Ruushku waxa uu dalbay in isbahaysigu uu ku heshiiyo in la joojiyo ballaarinta mustaqbalka, laakiin dagaalka ayaa horseeday in ciidamo badan oo NATO ah la geeyo geeska bariga iyo kor u kaca taageerada dadweynaha ee Sweden iyo Finland. xubnaha baarlamaanka Finland ayaa la filayaa inay warbixin amni ka helaan saraakiisha sirdoonka toddobaadkan, waxayna ra-iisul wasaare Sanna Marin sheegtay inay rajeynayso in xukuumadeedu ay soo afjari doonto dooda ku saabsan ku biiritaanka ururka ciidamada NATO inta aan la gaadhin bisha 6 ee sanadkan aynu ku jirno. dalka Finland ayaa xuduud dheer oo dhan 1340 kilomitir ama 830 mayl la wadaaga dalka Ruushka, waxaana soo food saartay cabasho xoogan kadib duulaankii Ukraine. xisbiga talada haya ee Safargomorkata oo sida caadada ah ka soo horjeeday xubinnimada NATO ayaa sheegay in ay dib uga fakerayaan mowqifkooda weerarka uu Ruushku ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee galbeed. xogayaha xisbiga Tobias Budin ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in dib u eegista NATO ay tahay in la dhammaystiro dhowrka bilood ee inagu soo fool leh. markii Ruushku soo weeraray dowladda Ukraine, fekerka amni ee Sweden ayaa isbedelay, ayuu xisbigu ku yiri hadal uu soo saaray maalintii shalay. laakiin Moscow waxay caddeeyeen inay ka soo horjeedaan ballaarinta isbahaysiga. Mr. Peskov ayaa uga digay ururka ma aha isbahaysiga noocan ah ee xaqiijinaya nabadda iyo xasiloonida. ballaarintani ma keenayso buu yidhi ammaan dheeraad ah oo qaaradda Yurub u soo hoyda. toddobaadkii hore Mr. Peskov wuxuu sheegay in Ruushka ay tahay inay isku dheeli tiray doonaan xaaladda iyada oo la adeegsanayo tallaabooyin u gaar ah haddii Sweden iyo Finland ay ku biiraan ururka ciidamada ee NATO. bishii labaad ee sanadkan 2022 Maria Zakharova oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ka digtay awaaqiibta military iyo kuwa siyaasadeed haddii dalalkaasi ay ku biiraan midowgaas.